Assalaamu calaykum daawade horey ma u maqashay xanuunka lagu magacaabo full moon parasite Full moon. Full moon. Because the full moon is a thing. They're the most active during a full moon. Why everyone's kind of crazy during a full moon is because they're eating your serotonin. They live off of it. That's why they make you feel sad. waa xanuun au dareemo ama cillada uu qofku dareemo habeenada au dayuhu caadada yahay sida 13 14 15 waxaad maanka ku haysaa sababtu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yiri hal la soomo bil walba 3 cisho hana laga soomo waliba oo waxa idin khayr badan habeenada caadada ah su'aashaas jawaabteeda waxaad helaysaa markuu muuqaalkan au sida u dhamaado daawaday ma ogtahay xiriirka ka dhaxeeya jirka bini'aadamka iyo dayaxa sidoo kale ma ogtahay xiriirka ka dhaxeeya biyaha iyo dayaxa waa suuragal inaad horey u ogayd qayb ka mid ah sidee ayuu dayaxu saameyn ugu leeyahay tayada hurdada ee bini'aadamka soomka uu nabigeena faray 3 habeen bil walba maxay tahay sababta wareegga caadada ee haweenka loogu barbardhigo soonaha dayaxa habeenada caadada ama dayaxa saameyn ma ku yeelanayaan dabeecadaha dadka ma jiraan hab nololeedyo dabiici ah oo ku xidhan soonaha dayaxa muxuu ka dhigan yahay xiriirka u dhaxeeya dayaxa iyo dhaqdhaqaaqyada biyaha gudaha dhulka sideedaba xiriirka u dhaxeeya jirkeena iyo dayaxu waa mid xiiso leh oo dhinacyo badan leh waxaana lagu saleeyaa cilmiga sayniska iyo dhaqankaba dayaxu wuxuu saameyn ku leeyahay nidaamyada dabiiciga ah ee adduunka sida hirarka badda dabeecadaha dadka caafimaadka jirka waxaana la rumaysan yahay in uu si dadban u taabto ama uu saameyn ugu yeesho jirkeena jirka bini'aadamku waxa uu inta badan ka kooban yahay biyo boqolkiiba 60 ilaa 70 baa la raadayay sida dayaxu u saameeyo biyaha badda waxa la aaminsan yahay in sidoo kale uu saameyn ugu yeesho dareemaha jirka daraasadaha qaarkood ayaa tilmaamaya in dayaxa buuxa waa xilliga uu yahay 15 uu saameyn karo tayada hurdada qofka iyadoo dad badan ay sheegaan inay ku adag tahay inay si fiican u seexdaan habeenadaas wareegga dayaxa waa lunar rhythms noolaha qaarkood waxay leeyihiin wareeg nololeed sida noolaha ama dulinada ku dhex nool jirkeena waa parasiteska oo ku salaysan dayaxa parasiteskaas ama noolahaasi nagu dul nool qaarkood ayaa la socda wareegga dayaxa si ay uga soo baxaan uguna faafaan waqtiga ugu habboon ama ay dhaqdhaqaaq u sameeyaan shaqada parasiteka dad badan ayaa rumaysan in parasitekan ama noolahan dulinkan inagu dul nool uu habeenada dayaxu uu cad yahay ama uu buuxo ay helaan firfircooni iyaga oo sababa caabuqyo daran ama calaamado sii xoogaysanaya sideedaba noole kasta noole ayaa ku dul nool ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ugu talagalay waana cilmiga ilaahay markaas noolaha ama parasiteka inagu dul nool marka uu jirka si qaldan u galo waxa uu noqdaa xanuun tusaale tapewormska waxa la yiraahdo soo jirkeenu si uu isku nadiifiyo ugana hortago waxaas qashinkaas aan cunayno oo u nadiifiyo wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina faray inaanu soono 2024 cilmi baarisada la sameeyay qaarkood xitaa waxay cadeynayaan in kansarku marka uu bilowga yahay ay qofka u fiican tahay inuu soomo waayo jirka wuxuu cunayaa khashinkii iyo sonkortii uu keydiyay taas barnaamij kale ayaan kaga hadli doonaa si guud qofka dulinada leh ama gooryaanka saan iraahna tapewormska caloosha kule xilliyada dayaxu uu 13 14 15 yahay waxa u fiican inuu soomo waayo waxa uu hoos u dhigayaa dhaqdhaqaaqii bahalkaas dayaxu wuxuu ku xidhan yahay ama saameyn ku yeesha hormoonada sida melatoninka waa hormoonka hurdada iyo serotoninka hormoonka farxadda ee kuwaas oo ka jawaaba iftiinka iyo mugdiga kolba jawiga uu yahay iftiinka dayaxa buuxa ayaa laga yaabaa inuu carqaladeeyo hurdada qofka taasoo keenta caajis ama dareen deganaansho la'aan ah dad badan oo ku nool adduunka ayaa dayaxa ku tilmaamay inuu saameyn ku leeyahay caqliga iyo dabeecadda dadka tusaale ahaan ereyga lunatic wuxuu asal ahaan ka yimid fikirka ah in dayaxa buuxa waa markuu 15 yahay uu keeno dabeecad xasilooni darro ah sidoo kale dhaqamada qaar waxay aaminsan yihiin in dayaxa uu door weyn ku leeyahay tamarta qofka gaar ahaan dhinacyada ruuxiga iyo caafimaadka maskaxda dayaxa iyo wareegga caadada ee haweenka ayaa si gaar ah loo xiriiriyay wareegga ayaa inta badan ka mid ah muddada soonaha dayaxa dadka qaarkood waxay dareemaan isbedelo cilmi nafsi ah oo ka dhasha soonaha waa wareegga dayaxa tusaale dayaxa cusub ama dhaladka dayaxa waa xilliga uu dayaxu soo baxay wuxuu calaamad u noqon karaa bilowga cusub ama tamar cusub dayaxa buuxa waa habeenada caadada wuxuu keeni karaa dareen xoog badan oo nafsi ah iyadoo dad badan ay sheegaan inay waayo aragnimo ruuxi ah ama shucuur xoogan dareemaan hirarka badda waa dhaqdhaqaaqyada biyaha badda oo kor iyo hoosba u socda si joogto ah waxaana si weyn u saameeya xoogga soo jiidashada gravity-ga ee dayaxa iyo qoraxda dayaxu wuxuu leeyahay xoog soo jiidasho oo saameeya biyaha dusha sare ee dhulka xoogan ayaa biyaha u soo jiida dhinacyada uu dayaxu ku yaalo taasoo u keeni karta hirar waaweyn
hadda waxaan filayaa inaad ogaatay sababta loo faray inaan soono bil walba 3 cisho aynu ka soono oo kaliya tahay danteena iyo caafimaadkeena waliba nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu doorbiday inay noo fiican yihiin habeenada caddada